الرحيم aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dhalinyarada Somali Youth Cluster ay ugu casuumaan dooda ama maxaa la yiraahdaa barnaamijkan ay ugu yeereen dawlad wanaaga iyo doorka ay ku leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dood wanaagsan ka dhacday talo badan laga bixiyay aad iyo aad ay productive u ahayd ama horumar ay u lahayd wax soo saarkeedana maaragtay rajo weyn aan ka qabnaa waxaan kula talinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed qof waliba doorkiisa inuu qaato oo maaragtay talooyinka aan laga caajisin wax qabadka aan laga caajisin waxa garbaxa dalkaaga iyo dadkaaga aan laga caajisin aad iyo aad ugu hanweynahay in shirkan iyo shirarka kale soo socdo wax weyn uga soo ziyaadi doonaan wax badanna laga sii baran doono aad iyo aad u soo dhaweynaya waan u mahad celinay casuumaadii ugu casuumeen Somali Youth Cluster hore u socdaan leh بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وحوارا حساس مكان وحمات ماشى نسوي مع ذي لأن يرادا ليسكو كان فكرة ذا لو يبينايو جالس قفل بالفكرة ده إن لقاء عادي ومهم تاع لأن يرادا مشروع إذا أنا قال إنه قصر لعبتان عادي وفي عنده هاي ما وحلاقي هلا إنه حوالي جود كفر بس الدولة وناك سومالي وحالها بقول كده تبعت عشان لأن يروا مركا وحا في عن مرور بإنه حساب طبعا عدل بعيد صاد دورتي عدل بعيد اللي حساب انتو وسير كذا الدبان كذا مدح كذا قرن إن اللي حساب تماعد في عنتان just أنا مركز جود كفرنس سميته أنا مركز وناك سناد تذكروا وناك سنانا يعني لكن just ده أنا كمالو خف أنا مدح لينا حد تذكروا يقدر بدأ السنة يعني جود كفرنس يعني ما أنت مش على هذا يعني اللي معنا إمادين ضد مسؤولين إمادين just واحد بدنا على جهاد وأنا يرد معك joogtana meesha wax u malay doona inay wax ka bedelaan dhaqanka maanta jiro assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa Dr. Sakri Abdullah Tureere maanta waxaan ka soo qayb galnay barnaamij ay qabanayeen ururka dhalinyarada oo Somali Youth Cluster ku midoobay ilaa dhowr urur oo 42 urur gaarayaan runtii barnaamijka ay soo qabteen iyo munaasabadda ay maanta qabteen munaasabad aad muhiim u ah waxa lagu hadlayaa hanaanka iyo dowladnaaga waxa ka soo qayb galeen xildhibaano iyo aqoon-yahano kale oraahina waa la weydiiyay waxna waa noo sheegeen ururkan oo maanta soo qabanqaabiyay barnaamijkan waxaan jeclaan lahay in barnaamijyo joogta inay ka dhigaan in markastana yani haddii la heli karo weekly ama monthly ama intii ayaga u garan karaan inay ka dhigaan in laga dhigo ma fiican tahay in madaxda iyo shacbiga isdhex galaan waanu ka mahad celinaynaa in dhalinyaro ka shaqeeyaan barnaamijyadan ay isu keenaan dhalinyaradii iyo dadkii oo hawshan lahaa inay isu keenaan yani waxaan codsanaynaa feedback oo dadkii maanta meesha isku imaaday ay bixiyeen in la qaato isla markaana laga rumeeyo madaxdana ay ku kalsoonaadaan warkan ay qaataan barnaamijyadan la badiyo waan mahadsantihiin dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa panelka dhalinyarada quruxda badan ee kasoo qayb gashay runtii madashan aan ugu talagalnay in maskaxda dhalinyarada lagu shiilo wax badanna ay laga faa'iideysto quburada aan ku casuunay panelka intooda badan panelka inta saaran waxay ka mid yihiin Somali Youth Cluster ay ka mid yihiin haba ugu weynaato mandeeqa oo ah maskaxdii qaybo ka mid ah Somali Youth Cluster waa maasantihiin waqti badan oo aan wada hadalno nooma harin waqtigiina quruxda badnaa iyo meelihii dheedheere ah ka imaadeen waan idinkaga mahad celinaa waxay idin leeyahay waa mahadsantihiin madalahan ay qabanaysay Somali Youth Cluster aad ay u fara badan yihiin waxaan ka hadlanaa arrimaha sharciga xuquuqda aadanaha dib u dhiska dalka nabadeynta iyo weliba horumarka ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada waxaa miiska noo saaran oo aan karkarinaynaa biilkii doorashooyinkan karkarinaynaa waxaa jiri doonta codad badan oo aan ka heli doono dhalinyarada dalka guud ahaan gobolladoo dhan foxball samayn doonaa in dhalinyaradu ay codkooda banaanka la keeno waxaa u baahan tihiin inaan ogaano naftirkeena research-yaan sameynaa oo aan ka sameynaa maxaabiista xabsiyada ku jiro qaabkay u nool yihiin ma helaa xuquuqaadkii qofka oo xabsiga ku jiro uu lahaa ma helaa hadduusan helin sidee lagu soo bandhigi karaa oo dadku aan ula wadaagi karnaa marka research fara badan aan ku maqannahay intaan aamusannahay Somali Youth Cluster ay aamusan tahay
number badan anaga mid ah oo urur midoobay ma aan hal organization waa 42 urur oo midooday oo guud ahaan dalka ka dhisan marka waa mahadsantihiin kulankeena quruxda badan iyo ka qaybgalkiina iyo aragtiyadiina iyo talooyinkiina aan siiseen qof walba taladiisa waa qornay wixii outcome oo ka yimaadana kulankan waxaan ku soo daabacaynaa page-ka Soomaaliya Cluster-eelada oo site-ka iyo social media intaba mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin kulanku noo xiran yahay maqrib wanaagsan waan idinkaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina shukran